Mr. Secretary General, thank you again for visiting Somalia. Welcome to Mogadishu. We are deeply appreciative and grateful. mudane xoghaye guud waxaan mar kale kaaga mahad celinayaa booqashada aad ku timid Soomaaliya ku soo dhawow Muqdisho naga guddoon mahad ballaaran oo ku aadan garab istaagga aad u muujisay dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda xilligan xasaasiga ah qaramada midoobay waxa ay soo garab taagneed dadka Soomaaliyeed 10kii sano ee u dambeeyay dadka Soomaaliyeedna waa kuwa taageeradaasi ka mahad celinaya booqashada xogayaha guud oo aan ognahay howlaha culus iyo jadwalka adag ee hor yaalla ma aha mid sahlan sidaas awgeed dadka Soomaaliyeed aad ayay kaaga mahad celinayaan booqashada aad ku soo aadisay bisha barakeysan ee Ramadaan ee aad noogu timid mudane xilligan la jooga Soomaaliya waxa ay sameynaysaa horumar horay ayaan u soconnaa marka laga hadlayo jihada amniga dawladda Soomaaliya waxa ay dalkeeda ka xoreynaysaa gaboodfalada argagixisada caalamiga ah oo muddo ka badan 10 sano dib weyn ku haya shacabka Soomaaliyeed jihada dawlad dhiska waxaan qabanay 5 shir wada tashi oo isxigay kuwaasi oo guuleystay oo aan la yeelanay maamul goboleedyada dalka ka jira si aan heshiisyo la isla ogol yahay uga gaarno arrimaha taagan muddadii aan ku jirnay kulamadan waxaan la tacaalnay arrimo xasaasi ah oo ku aadan dib u eegista dastuurka iyo caqabadaha dhanka amniga ee dalka ka jira horumar wanaagsan ayaan ka gaarnay dhinaca dejinta qorshe qaran nidaam federaal iyo garsoor si aan u yeglano nidaam federaal oo wax ku ool ah oo dalka oo dhan maamula waxaa hadda hor yaalla 3 mudnaan oo wada jira midda ugu horeysa waa inaan dalka ka xoreynaa tacadiyada argagixisada tan labaad waa sidii aan ku baajin lahayn macluul ka dilaacda dalka waxauna qodobkani la xiriira dadaalada jihada arrimaha bini'aadanimada arinta saddexaadna waa sidii aan ku dhameystir lahayn dib u habeynta la xiriirta hanaanka dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka arintan oo qayb lixaad leh ka ah dawlad dhiska aan higsanayno Soomaaliya waxaan sidoo kale diiradda saaraynaa sidii aan u maalgashan lahayn dadkeena gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka waxaan dhawaan qornay 10,000 oo macallimiin ah kuwaasi oo ka howlgalaya nidaamyada waxbarasho ee dalka si deegaanada aan ka xoreynay argagixisada oo aan wali fursad u helin tacliinta ay iskuulo ugu helaan ubadkooda Soomaaliya waxa markasta ka go'an sidii ay u xoojin lahayd xiriirka ay la leedahay qaramada midoobay sidaas awgeed qaramada midoobay waxaan la leenahay iskaashiyo ku aadan dhinacyada arrimaha bini'aadanimada dib u habeynta dawladnimada iyo waxyo kale oo muhiim ah haatan waxaan wada shaqayn la leenahay bahwadaagta kale oo naga garab siinaya barnaamijyada xasilinta si deegaanada laga xoreeyo al-shabaab aan ugu soo celinno nidaamka dawliga ah waxaan ka rajaynaynaa qaramada midoobay inay kordhiso maalgelinta xasaasiga ah ee ka sameynayso deegaanada aan xoreynay si dadka ku nool goobaha la xoreeyay oo ah muwaadiniinteena muddo dheerna la siiyay fursadihii ay ka heli lahaayeen adeegyada dadweynaha ay u helaan adeegyada ay u qalmaan waxaan sidoo kale qaramada midoobay kala shaqaynaynaa sidii dalkeena looga qaadi lahaa xayiraadda hubka ee nasaaran in ka badan 30 sano waxaan qabaa inay tahay xilligii saxda ahaa ee Soomaaliya laga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka waxaan kaga mahad celinaynaa qaramada midoobay xafiisyadiina wanaagsan taageerada aad naga siinaysaan arrintan gaar ahaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo garowsaday inay Soomaaliya soo gaartay heerkii laga qafiifin lahaa cunaqabatayntan arrintaas oo na caawisay balse waxaan ku dareenaynaa
in gebi ahaanba nalaga qaado xayiraadda hubka mustaqbalka dhow. gunaanadkii mudane mar kale ku soo dhawow Soomaaliya waxaan kaaga mahad celinaynaa booqashadaada taariikhiga ah ee aad noogu timid. mahadsanid for your visit at this critical time in our history. Thank you.